wuxuu ku aadan yahay qabiilka iyo qabyaaladda iyo kolba sidii loo soo afjari lahaa. waxaa insha allah barnaamijkan ila falanqayn doona walaalkay doctor cabdikariim. qaraaba iyo ahal riximnimaa loo qadariyaayo waa sanam qabyaaladii haddaad igu qancaysiine waa qaaxa iyo kaankar iyo aydhis qaab darane waa cudurka qaybaha bulshadu qaranku waayeene waa qowqam iyo sixir qalbiga qaaciyoo shidaye waa qaaba qawsayn dagaal qaciya yaahuuye qanjir boogi qodosoo qurmoo qolof la weeyaane waa gorofta lagu qaybiyaa malaxda qayrine qandiga fuqurka iyo xaasidkoo qaraxa weeyaane waa waxa qaxootiga ka dhigay 100 kun oo qoyse qalbigiina ka ilaashado wada jir qiimeeya oo qaangaar fidnoobe ilmahayan la qaabadse. bismi illaahi araxmaani araxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan daawadayaasha ku xidhan pageka runsheeg media t v ee facebooka, salaan aad iyo aad u qiimo badan baan hawada idiin soo marinaynaa. waxaan insha allahu tacaala galabta aynu madashan ku haynaa barnaamij ka duwan barnaamijyadii aad hore nooga barateen. waa barnaamij ku saabsan wacyigelinta bulshada, gaar ahaan wuxuu ku aadan yahay qabiilka iyo qabyaaladda iyo kolba sidii loo soo afjari lahaa. waxaa insha allah barnaamijkan ila falanqayn doona walaalkay doctor cabdikariim cali rafleh, oo aan rajaynayo inaad si fiican uga wada bogan doono insha allah. soo dhawow doctor cabdikariim cali ugu horeyn waxaan doctorka weydiinayaa su-aal ah, inta badan waxaan ognahay bulshadeenu inuu yahay qabiilku cudur ragaadiyey aadna u dhibaateeyey. waxaan marka hore rabaa inaan su-aal ahaan ku weydiiyo doctore, muxuu yahay farqiga u dhexeeya qabiil iyo qabyaaladse maxaa lagu macnayn karaa? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد aad buu mahadsan yahay walaalka cabdirashiid axmed. runtii waa su-aal fiican oo runtii dad badan ka dhex guuxaysa farqiga u dhexeeya qabyaalad iyo qabiil. in badanna dadku way isku khaldaan markaad fiiriso. waxaynu qeexaynaa insha allahu tacaalaa qabiil muxuu yahay, qabyaaladse maxay tahay. qabiil, ugu horreyn qabiilku waxa weeye waa bulsho wadaagta isir iyo abtir ama hayb oo maaragtay isxigta. waxaasaa qabiil la yidhaahdaa. qabiilkaasa markaa wuxuu u qaybsamayaa jilib, qoysas iyo wixii la mid ah. saa darteed qabiilku asal ahaantiisa waa wax maaragtay jiray oo in badan maaragtay axaadiista nebiga sala alla alay wasalam iyo maaragtay qur-aanka kariimka lagu sheegay. marka qabiilku sidiisuba isagu wax dhalaacayna ma laha, laakiin dadka inta badan waxay isku khaldayaan qabiil iyo qabyaalad. qabiilku waxa weeye waa meesha qofku ka soo jeedo iyo abtirkiisa. qofkuna inuu ogaado abtirkiisa iyo meeshuu ka soo jeedo dembi ma aha, wax lagu ceebeyn karana ma aha. saa darteed baa abulcabaas numayri sheekha la yidhaahdo ibnu taymiyat alxaraani ayaa markuu arrintaa ka warramayay wuxuu yidhi aayad qur'aan ah ama xadiis nebi oo qof ku dhaleeceeyey maaragtay qabiil uu ka soo jeeday lama soo helaya buuri. laakiin qur'aanku ama axaadiistu waxay qofka ku dhaleeceeyeen ama ay ku ammaaneen waa qofka akhlaaqdiisa iyo iimaankiisa kolba suu diinta u haysto. in badan diintu waxay qofka ku ammaantay qofkan iimaankiisa, akhlaaqdiisa, wanaaggiisa iyo cibaadada ilaahay iyo taqwada inta uu ka taagan yahay. dhinaca kale in badan waxay ku caabaysay qofka xumaanta uu ku jiro iyo maaragtay ama gaalnimo ha noqoto ama faasiqnimo ha noqoto ama munaafiqnimo ha noqoto, waxa uu ku dhex jira xumaan ah ayay inta badan ayay ku caabaysay. taa maxaad ka garanaysaa meeshaas in diinta islaamku ayna qabiilka waxba dhaleecaynayn. saa darteed baa ilaahi subxaana wa tacala qur-aankiisa kariimka ah wuxuu ku leeyay ya ayuha aladiina aamanuu cafwan ya ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu. ilaahay wuxuu yihi dadkiibuu la hadlay. dadkii markii la leeyahay waa si guud, gaal iyo muslimba.
waxaan idinka abuurnay buu ilaahay yidhi shucuub iyo qabiilo litacaarafu saad maaragtay isku garataan. ilaahay subxaana wa tacala aayadda wuxuu ku caddeeyey ujeeddada dhan ee laga doonayo qabiilka qofku inuu yahay maxay, inuu yahay litacaarafu, in la isku garto keliyeet. lama odhanin inaad isku dagaashaan, inaad isku caabaysaan, inaad iska kala sarraysisaan, inaad maaragtay qofba qof kale ku yaso, laa lama dhihin. ee waxaa la yidhi litacaarafu bas, waa sidaas. gaal iyo muslimba in la isgarto, qofku uu garto meeshuu ka soo jeedo, reerka uu yahay. waxaa ku tacalluqa ama la xidhiidha arrintaas qofku inuu garto meeshuu ka soo jeedo arrimo fara badan. arrimahaas lamber kow waxa weeyaan qofku cidda uu guursanayo ayuu gayaa ayuusan gayin. hadduuna garanayn qofku meeshuu ka soo jeedo abtirkiisa, waxaa laga yaabaa dadkii una geyin inuuba gabdhihii una geyin iska guursada laga yaabo. laakiin marka uu yaqaano ma guursanayo ciddii una geyin. labo, dhaxalkii baa meesha soo gelaya. qofku hadduuna garanayn meeshuu ka soo jeedo ama cidduu yahay, dhaxalkii waxaa laga yaabaa halkaa inuu ku lumo. marka arrimahaasaa ku tacalluqa. waxaa kaloo ku tacalluqa difaaca, oo qofku waxaa laga yaabaa reer hadduu ka dhasho way difaacayaan, iyagoo markaa jaanibka positiveka u adeegsanaya xagga maaragtay togan, oo wixii khayra ku garab istaagaya, wixii dulmiga lagu hayana ka qabanaya, talo siinaya, kaalmaynaya. waxyaalahaas oo dhan baa qabiilka ku xidhan. marka maxaad ogaanaysaa qabiilku inuunan sida dadku badankooda u fahamsan yihiin uun ahayn. inta haddaan kaga soo gudbo qabiilka iyo qeexitaankiisa, waxaan hadda ka warramaynaa insha allah qabyaalad maxay tahay. qabyaaladdu waa qabiilkaasoo si khaldan loo adeegsado ama negative loo adeegsado, oo qofku aamino in reerkiisu uu reeraha kale ka sarreeyo, in reerkiisu uu mudan yahay inuu xukunka qabto, inuu reerkiisu mudan yahay in isaga waxa weeye talada iyo wax walba looga dambeeyo, uu moodo qabiilkiisaas keli eeta inuu jiro ama sarreeyo. waa arrinta la yaab kale ee bulshada ku jirta. waana arrinta carruurta lagu korin jiray beryihii hore, oo qaab xun oo tarbiyo xun carruurta lagu soo korin jiray. reer hebel cadow baan nahay, reer hebel kanaan nahay. ilmaha yar oo soo koraya waxyaalahaas loo sheegi jiray. arrinta keentay marka qofku inuu cudad u hayo reer kale. marka qabyaaladdu waa arrintaas oo si xun, qabiilka oo si xun loo adeegsaday. waxaan dhihi karnaa runtii qofka qabyaaladda adeegsanaya waa qof liita oo aada u hooseeya. wuxuu u hooseeyaa waa qof karti aan lahayn, kalsooni aan lahayn isku kalsoonaan. saa darteed baa wuxuu doonayaa si uu u gaadho ujeedkiisii ama waxa uu rabay, ayuu wuxuu samaynayaa qabiil buu markaa qabyaalad buu abuurayaa, dad buu isku dirayaa si u gaadho meeshaa uu rabo. waa qof liita runtii. marka qabyaaladdaasi waa waxyaalaha soomaalida ragaadiyey, oo dagaallo fara badan ay u galeen, burburiyey, dowladnimadii u diiday, qarannimadii u diiday. waxyaalo fara badan oo ku abuuray. hadda ad ogtihiin dhibaatada jirta ee soomaalida ka jirta, ilaa hadda lama sheegi karo waxyaalaha dhibaato ee qabyaaladdu ay abuurtay. 1991 dagaalkii dhacay ee qabyaalad un ka bilowday ilaa hadda uu socdaa. waxa weeye dhibaatadaasna qabyaalad baa abuurtay. marka farqigaas u dhexeeya ballaaran, intaasaan kusoo koobi lahaa. okay, aad baa mahadsan tahay. su-aasha labaad hadda raba inaan ku weydiiyo waxay tahay, waxaad kaga dhawaajisay qabyaaladda iyo qabiilka, mid kasta waad qeexday, farqiga u dhexeeyana waad caddaysay. qabyaaladda ama cudurkan qabyaaladda ah, sababaha keena maxay tahay? waa su-aal fiican. markaan ka hadlayno qabyaaladda waxa sababa, qodobo dhowra ayaan rabaa inaan ku tilmaamo. qodobka koowaad, waxaan dhihi karaa waxaa sababay qabyaaladda jahli fara badan oo dadka islaamka ka haysta diintooda. jahligaas marka ballaaran iyo aqoon darradaas baa keentay dadku inay qabyaalad ku dhaqmaan, oy qofku u arko in qabiilkiisu sarreeyo, ku faano. marka qodobka koowaad wuxuu noqonayaa cilmi la-aan jirta. qodobka labaadna waxaa weeye oon dhihi karo uu sababaa waa tarbiyad xumo. dadkii oo markii carruurtii markay yaryaraayeen la tarbiyeynayey oo tarbiyo negative ah ama
shareecada waafaqsan khilaafsan lagu soo tarbiyeeyey. oo matalan ilmihii isagoo yar baad arkaysaa oo la barayo qabyaaladii, reer hebel cadow baan ahayn, reer hebel waa sidaas, innagaa saasa, ilmihii waxaas lagu soo tarbiyeynayo. arrintaasaa keentay marka in qabyaaladdu faafto. arrimaha kale sababo qabyaaladda waxaa ka mid ah in qofku uu doonayo inuu kursi gaadho, matalan tusaale ahaan, marka wuxuu qofkii abuurayaa in uu qabyaalad kiciyo, dadkii uu dhexdooda ka abuuro problem uu markaa leeyahay qabiil hebel baa yaa kursiga leh, uu kaas ku andacoonayo, sidaas arrintaas ku andacoonayo. marka arrimahaas dhowrka ayaa ka mid ah. Okay, si wanaagsan. waxaa isku daydaa mar labaad inaad ka jawaabto qabyaaladan ama cudurkan ummadda Soomaaliyeed ragaadiyey saameyn intee leeg buu bulshadii Soomaaliyeed ku yeeshay? waa su-aal fiican. runtii saameyn ballaaran buu ku yeeshay cudurkan qabyaaladii. aad iyo aad buu ummaddan Soomaaliyeed u ragaadiyey. waxay yidhaahdaan dadka ka faallooda arrimaha Soomaalida, laba shay baa Soomaalida ragaadiyey ama dhafoorka ay leedahay maanta u yeelay. midda koowaad waa qabyaalad oon hadda u fadhino qeexitaankeedii waxa ay tahay. midda labaadna waa qaadka. haddaba sababahaas cafwan saameyntaa ballaaran ay ku yeelanayso waxaa ka mid a kow, in ay horumar la-aan ummaddii Soomaaliyeed ku abuurtay. waayo ummadii haddayna horumar lahayn, waad garanaysaa meesha ay gaadhayso iyo sida ay noqon doonto. nabad la-aan, waxaa weeyaan aqoon la-aan, noocyo fara badan oo kala duwan iyo saameyn kala duwan ayay ku leedahay qabyaaladdu ummadda Soomaaliyeed. marka waxaan leenahay qabyaaladda noocaasa in aynu ka digtoonaano, ummadaha uga digno, wacyigelin samayno, isku dayno sidaan uga bixi lahayn. waayo haddii horumar la-aan ay keenayso, nabad la-aan keenayso, nolol la-aan keenayso, dadka Soomaalida waxaa la gudboon in ay u istaagaan horumarkooda iyo aqoontooda iyo noloshooda. intabana waxaa burburinaysa qabyaaladdaa burburinaysa. dhinaca haddaan ka soo qaadan tusaale ahaan, dhinaca dhalinyarada saameyntay ku leedahay. dhalinyaradu waa u bixi waddanka, dadka iyo diinta. dhalinyaradii maanta waxay ku mashquulsan yihiin intay ku mashquulsanaan lahaayeen horumarka ummadooda iyo say uga talin lahaayeen aayaha ummadooda, ayay waxay ku mashquulsan yihiin qabyaalad iyo isku dir iyo maaragtay baraha bulshada ay ku faafinayaan si maaragtay qabiil hebel baa qabiil hebel ka fiican, qabiilka nagaa kan ka fiican, wixii laga digayey oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu lahaa dacuuhaa fa inahaa muntina, iskaga taga way ureysaaye. saa darteed qofku waa inuu ku xisaabtamo hadalkan uu ku hadlayo oo baraha bulshada soo dhigayo ama Facebook ama waxa la midka ah, saameyn intee leeg buu ku yeelanayaa bulshada. marka dhalinyartu waa inay u jeestaan ummadda horumarinteeda iyo aayada inay ka taliyaan, laakiin inay ku abuuraan qabyaalad iyo wax noocaasa ay joojiyaan. dhinaca haddaan soo qaadanno siyaasiyiintoo kale, waad ogtihiin oo nin walba qabiil buu ka soo jeedaa. mana xuma qofku inuu qabiil ka soo jeeda, ma xuma, laakiin dadkii inuu u adeegsado wax uu kursi ku gaadho. midna ogaada, ninka noocaasee qabiilka meeshaas inuu ku gaadho doonaya, hadhow qabiilka inuu wax u qabanaya hamoodina. waa jaranjaro uu sii marayo, hadhow markuu meesha gaadho bas maba yaqaano qabiilkuu ka soo jeeday ee uu sheegayay. marka kursi inuu ku gaadho qabyaalad ayuu rabaa, oo ummaddii baabi'iyo, oo uu u muujiyo qabiilada kale inay hooseeyaan, yaso. taasna waa runtii waa arrin fool xun oo haysata madaxda maaragtay Soomaalida meel kastay joogaanba. dhinaca bulshada si guud waa arrin dhibaato haysata oo loo baahan yahay in laga baxo. waan gartay. su-aasha labaad ama su-aasha kale aan rabaa inaan ku waxay tahay qabyaaladaas caynkaa ee dhibaatada badan keentay, xal maxaa u ah?
runtii waa gabagabadii xalka qabyaaladda. waxaan soo sheegnay qabyaaladdu inay tahay cudur, cudurkuna daw u baahan yahay. cudurrada marka laga warramayo, cudurku wuxuu leeyahay wax sababa, causative agent wax la yidhahdo, calaamaduu leeyahay, wuxuu leeyahay oo kale treatment iyo dawo. haddaba cudurkan qabyaaladda waa cudur runtii aad u daran oo aidiska ka xun baan dhihi karnaa. qof maanta hadduu aidis ku dhaco, dee isaga unbuu ku kooban yahay, maanta isaga unbaa dawo ma lehe, laakiin cudurkaas isaga unbuu ku kooban yahay. laakiin qabyaaladani hal qof hal shaksi kuma koobnaanayso, bulshadii bay gaadhaysaa, bulshadii bay ku faafaysaa. qofka marka ku dhaqmaya keliya kuma koobna. saa darteed waxaan u baahannahay inaynu cudurkaas dawadiisa sheegno. nin ka mid a qoraayada soomaalida, hadda ma xasuusta magaciisii, ayaa wuxuu yidhi waxaa lagu daweyn karaa qabyaaladda 4 qa baa lagu daweyn karaa buuri. 4 qaaf ama 3 aan dhaho. qalin yaa lagu daweyn karaa, in dadku wax bartaan, qunyar socod, dadku inay qunyar socod noqdaan, iyo qur-aanka oo kasii horreeyeyba. qur-aanka ugu horreeya wax lagu daweeyo horta, dadku inay u noqdaan diinta islaamka iyo maaragtay caqiidada suuban ee saxdaa inay u noqdaan. wax ka wanaagsan ma jiro oo lagu daweeyo qur-aanka iyo diinta. waayo waxaad og tahay taariikhda islaamka, waxaa jiray inta nebiga sal alla alay wasalam una hijroonin, una maka ka hijroonin, 2 qabiil oo aws iyo khasraj la yidhahdo oo madiina deganeed. markay diinta qaateen 120 sano ayay soo dagaalami jireen, oo dagaallo fara badan baa soo maray. markay diinta qaateen ay maaragtay caqiidadii islaamka qaateen, dadkii noocaas ahaa rasuulku u walaaleeyey, walaalay noqdeen, boggoodii burcad isku mariyey. waxaasaa ka dhigay dadkii intaasoo sana is soo leynayey waa diinta islaamkay qaateen wey. soomaalidu mise sana isleynaysa ma gaadho intaas. maxaad u malayn weliba iyagoo isku afa, isku diin ah, isku dhaqan ah ayaa maxaad u malaynaysaa qur-aanku soo ma daweynayo? si dhib yar buu daweynaya qur-aanku. dadkaasoo kala duwan oo 2 reero kale ahaa ayuu qur-aanku daweeyey, oo intaasoo sana is soo leynayay. soomaalida si dhib yar buu daweyn karaa qur-aanku haddaan u noqono islaamka saxiixa ah iyo fahamkiisa. taas horta waa qodob oo ah 3 qaaf ayay ku jirtaa. waxaa kaloo dawo u ah dadku cadaalad inay sameeyaan, dadka madaxda ah iyo qof kasta oo kursi ku fadhiya haba yaraadee inuu cadaalad sameeyo. dadku hadday cadaalad helaan oo maaragtay qofku uu dareemo in cidna aynan yasaynin, cidna aynan arrintiisa duudsiinaynin, si dhib yar buu maaragtay u degayaa. marka cadaalad, arrinta ugu muhiimsan cadaalad in la sameeyo. qodobka 3aad oo kusoo kobay waxa weeye ee lagu daweyn karo in la abuuro waxa la yidhaahdo anti tribalism. qabyaaladda tribalism baa la dhahaa af ingiriiska, luqadda carabigana waxaa la dhahaa alqabaliya ama alcasabiya, luqadda soomaaligana qabyaalad baa la yidhaha. marka in la abuuro anti tribalism, la dagaalanka qabyaaladda, urur ka shaqaynaya in la abuuro, oo ururadu ay arrintaas sameeyaan, oo markaas si guud iyo si gaarba loola dagaalamo qabyaaladda. waxaad maqashay anti corruption oo dowladuhu qaateen in lala dagaalamo maxaa la yidhahdaa musuq maasuqa in lala dagaalamo. laakiin wax musuq maasuqa ka daran baa jira, oo musuq maasuqa waxa keenaya waa maxay? waa qabyaaladii. marka arrintaas in la qaato oo dadka soomaalidu ay ku dadaalaan inay arrintaas si guud uga soo horjeedsadaan, inay la dagaalamaan qabyaaladda. arrintaasaan kusoo koobi lahaa. si wanaagsan. hadda waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenna. waxaa haddaan mar labaad kugu soo celinayaa dardaaran guud inaad bulshada iyo wixii ku maqli doona oo dhan aada u jeediso si qabyaalada looga hortago. maaragtay ugu dambeyntii waxaan leeyahay soomaaliya tashada, maaragtay qabyaaladda iyo qurunka iskaga taga. horeyna in badan baa looga hadlay, culimmadaa ka hadashay, aqoon-yahankaa ka hadlay, gabayaada ka hadlay. haddaan soo qaadana matalan gabayadii soomaalidu ay ka tiriyeen, abwaan cabdullaahi suldaantimo cadde muxuu lahaa, dugsi male qabyaaladi waxay dumisa mooyaane. marka horey baa looga hadlay. abshir bacadle isaguna muxuu lahaa,
waa sanam qabyaaladii haddaad igu qancaysaane iyo maaragta gabayadiisi kala duwanaa waa waxa qaxoontiga ka dhigay 100,000 oo qoysa buuri waa runtii maanta daafaha caalamka haddaad tagto meel kasta Soomaalida ku daadsan waxaasaa u galayna waa qabyaalad wey saa darteed si guud inaynu arrintaa u fahanno inaasaan kusoo koobi lahayn sala allahu calaa sayidina Muxamed wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin